السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتنا أن جعلنا وعدين سلامني أدونك دعالدي سمير البوء كجوكتان ومركلي برنامج كيني فاقداد عيارها ومالين تلاذا بيشنا إتهيشن إلا باتن سنة كوا 2020 كسو دواذا مركلي برنامج كيني فاقداد عيارها وحايدين سو قد بينينا عياري حالة الديلي اسكوردي لقد ديوان قليي كوحدا مانشستر يونايتد أيا حالي اسكورير أو عجيبة أو طريقة سوبيسي xogtaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha. Kooxda Manchester United ayaa shalay guul weyn ka gaartay kooxda Sheffield United iyagoo ku sii dhawaaday booska kaalinta afaraad oo hadda Chelsea ka hooseyso 2 dhibcood. Inkastoo Chelsea caaw ay dheelayso ayadoo waliba marti u noqon doonto kooxda Manchester City. Haddaba xogta laga diiwaan geliyay kulankii Manchester United iyo Sheffield United ayaa wuxuu ahaa in 7 sano ka hor ay ugu dambeysay in xidig Manchester United oo ciyaaro inuu dhaliyo 3 goolal ah. Haddaba iskoorkaas waxaa haystay Robin van Persie oo ahaa ninkii ugu dambeeyay ee 3 u dhaliyo Manchester United. Waxa kale oo xidiga reer Faransiiska Antonio Martial oo iskoorkiisa khaaska u ah iyo bahdiraadii ka haysatay xidigaha Faransiiska ee ka xamaasho horyaalka Premier League uu shalay soo gabagabeeyay kadib markii 2016 ay ugu dambeysay xidig ka soo jeeda wadanka Faransiiska inuu ka dhaliyo horyaalka Premier League 3 goolal ah. Kulankaas ugu dambeeyay ee 2016 waxaa sidaas suubiyay Olivier Giroud oo 2016 u dhaliyay Arsenal 3 goolal ah. Haddaba Robin van Persie oo iskoorka uu shalay kala wareegay Antonio Martial ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray aad ayaad u mahadsan tahay Martial, waan sugayay iskoorkayga in la jabiyo 7 sano ka bacdi. Waxaa kaloo kamid ah barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha kooxda Liverpool sidee u qaadi kartaa horyaalka Premier League. Bishii Maaj ayay ahayd Liverpool isku diyaarintii inay horyaalka Premier League ku guuleysato isla markaana ay rikood ku dhigto kooxihii waqtiga ugu degdega badnaa ku qaaday, laakiin taasi cagsi ayay noqotay. Waxaanay hadda taariikhda ku galaysaa in waqtiga ugu habsanka badan taariikhda Premier League ay koobka ugu guuleysatay markii lagu soo laabtay horyaalka Manchester City ayaa ku sii qabsatay Liverpool inay weli sugto waqtiga hanashada waxayna ku bilaabantay guul ay ka gaadhay Arsenal oo ay ku burburisay 3-0 ka hor intii aanay kooxda Liverpool barbaro la gelin ayadana kooxda Everton. Balse kulankii Marseillaiska markay barbaro gashay Liverpool xalay ay ku soo laabatay wadada guusha markay Crystal Palace burburisay oo kaga badisay 4 gool iyo waxba. Haddaba asxaabay Liverpool waxay u baahan tahay 2 dhibcood oo hesho waxayna la dheeli doontaa isbuuca soo socdo kooxda Manchester City. Kooxda Manchester City haday ka badiso kooxda Liverpool waxay Liverpool markaa ku sii qasbanaan doontaa in ay sugto kulanka xigo. Mar walba xasuusnow Liverpool horyaalka inay u dabaaldegto waxa ka xigo 2 dhibcood oo kaliya. Inkastoo Manchester City ay la dheelayso caawa kooxda Chelsea, haddaba hadii kulanka Chelsea iyo Manchester City ay wax barbaro ah ama laga badiyo kooxda City, Liverpool markaas waxay ka maarmi doontaa 2 dhibcood ay hadda raadinayso waa hadii Chelsea badiso ama ay bareejo la gasho. Haddaba dhageystayaal kulanka miyaa lagu go'aamin doonaa Etihad Stadium mase Liverpool waxay sugi doontaa waqti kale ay ku soo hesho 2 dhibcood waa hadii guul darro ama barbaro ay la gasho kooxda Etihad Stadium ee Manchester City. Haddaba haday Manchester City ay caawa ka soo badisay Chelsea ay Liverpoolna ka sii badiso waxa halis sii gali doono ku guuleysashada koobka Premier League ee Liverpool ayadoona ay ka harsan tahay horyaalka Premier League 6 kulan oo kaliya. Haddaba waa sidee jadwalka kooxda Liverpool iyo Manchester City ee kulamadooda soo socdo. Liverpool Khamiista July 2 waxay la ciyaari doontaa Manchester City. Axad July 5 Liverpool waxay markaa la ciyaari doontaa Aston Villa.
Arbacada Julaay 8-deeda Brighton Forest figistii Liverpool ayaa wada ciyaari doono. Sabtida Julaay 11-keeda Liverpool waxay la ciyaari doontaa kooxda Burnley. Haddaba jadwal ciyaareedka 6 kulan ee Manchester City Khamiista June 25-keeda waxay la ciyaari doontaa oo caawa ah kooxda Chelsea. Khamiista Julaay 2-deeda waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester City kooxda Liverpool. Axadda Julaay 5-teeda Southampton iyo Manchester City ayaa wada ciyaari doono. Arbacada Julaay 8-deeda waxaa wada ciyaari doono Manchester City iyo kooxda Newcastle United. Haddaba yaa haysto fursadda ugu fiican markii la isbarbar dhigo min 6 kulan ee u hartay kooxaha Liverpool iyo kooxda Manchester City. Waxaa kaloo ka mid ah barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha macallin Jose Mourinho oo weerar afka ah ku qaaday mar kale dhigiisa Pep Guardiola asiga ona shirkiisa jaraa'id ee ka horeeya kulanka caawa. Wax laga weydiiyey Jose Mourinho ayaa wuxuu hadal duritaan u muuqdo ku riday Pep Guardiola. Saxaafadda markii ay weydiisay macallin Jose Mourinho qorshihiisa xil ciyaareedka dambe ayuu Jose Mourinho waxa uu sheegay in aysan dhici doonin hal mar in uu soo iibsado 10 ciyaartoy isla markaasna uu baabi'in doonin dakhliga kooxda oo dhan. Asigoo hadalkaas ula jeeday waxii uu suubiyey macallin Pep Guardiola 2016-2017. Muxuu ka yiri macallin Jurgen Klopp hadalkii uu yiri Pep Guardiola ee ahaa in uu ciyaartoydiisa waaweyn fadhiisin doono kulanka ay iska hor imaan doonaan Ajax iyo Liverpool aandhe uu la ciyaarayo kooxda Chelsea, taasoo jaanis fiican u siin doonto in uu asoo ciyaartoydiisa u caafimaad qabaan uu ka hor yimaado kooxda Liverpool. Walow ciyaaryahan Sergio Aguero uu ilaa hadda dhaawiciisa wax war ah uu ka soo saarin kooxda shirkeeda jaraa'id. Haddaba Jurgen Klopp oo u jawaabayo ayaa waxa uu sheegay in uu qamaar dheelayo macallin Pep Guardiola, qamaarkaas oo ah in uu u dhiganayo ciyaartoydiisa kulanka ay wada ciyaari doonaan Sabtida Ajax iyo Liverpool. Jurgen Klopp waxa kale uu hadalka ku daray guushii kooxdiisa ka gaadhay kooxda Crystal Palace, wuxuuna yiri wiilashaydu way u ciyaareen sidii uu garoonku buuxo oo taageerayaasha joogaan camal ay u dheereen, ayuu yiri macallin Jurgen Klopp. Wuxuu ahaa mid cajiib ah, wuxuu ahaa mid aan caadi ahayn oo la yaab leh in badanaa aan ka helay waxyaabaha ay ku dhex subiyeen garoonka dhexdiisa. Sergio Ramos asigana mar kale waxa uu jawaabay Gerard Piqué asigoona yiri qaylada waa iska caadi. Gerard Piqué xalay ayuu ahaa kulankii Real Madrid ay dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka La Liga, kulankaasoo Ramos uu ka dhaliyey gool Belgium aad u qurux badan. Markuu laaga xurta dhaliyey kadib ayuu wuxuu yiri waa iska caadi in qof iska qayliyo. Wuxuu kaloo yiri waxa sababtoo ah waxaan haynaa hoggaanka horyaalka, horane umay jirin in wax badan lanaga hadlo, lama aha in garsoorku ay sameeyaan go'aamo laga sii fakarayo. Waxay u muuqataa sidii anagu garsoorayaasha ugu mahad celinayno inaanu kaalinta koowaad nimid. Dadku filimo ha u jileeno. Sergio Ramos waxa uu dhaliyey goolkii labaad ee kooxdiisa u xaqiijiyey 3 dhibcood ay ka qaateen Real Mallorca. Sergio Ramos waxa uu intaas ku daray hadalkiisa, hadda waxaan nahay hogaamiyaasha horyaalka La Liga, waxaana sii ahaan doonaa kuwo dadaalkooda uusan marnaba kala joogsanin ilaa maalinta ugu dambeyso. Waqtiga waxbaa weli ka haray, ciyaaruhuna ma aysan dhammaanin, ayuu hadalkiisa ku soo xiray Sergio Ramos. Ciyaaryahanka kooxda Chelsea Pedro ayaa asigana si rasmi ah go-aan looga gaaray kooxda uu ku biiri doono xilli ciyaareedka markuu dhammaado uuna ka tago garoonka Stamford Bridge. 32 jirkan reer Spain ayaa ogolaaday inuu sii joogay Stamford Bridge inta ka harsan xilli ciyaareedkan Premier League, laakiin waxa uu kadib u hayaami doonaa Serie A isagoo ku biiri doono kooxda AS Roma
sida ay sheegtay Sky Sports. Pedro ayaa 18 kulan u ciyaaray Chelsea xilli ciyaareedkan, iyadoo 9 ka mid ah uu ku soo galay bedel. Wuxuu dhaliyay 2 gool. William, Christian Pulisic iyo Callum Hudson-Odoi ayaa dhammaantood dhanka doorashada kaga horeeya marka ay timaado, iyadoo xiddiga Ajax Hakim Ziyech uu kooxda imaanayo xilli ciyaareedka soo socda. Pedro ayaa haddaba wuxuu boos ka waayay kooxda Chelsea, wuxuuna kaga hayaami doonaa xilli ciyaareedka markuu dhammaado horyaalka Serie A asigoona kusii jeedo kooxda AS Roma. Markaana waxaa idiin haynaa 20 ciyaartooy ee ugu offside galka badan leh horyaalka Premier League. Xiddigii kooxda Arsenal iyo xulka Ivory Coast Emile Adebayor ayaa wuxuu noqday xiddiga ugu offside galka badan leh horyaalka Premier League taariikhda inta la qoray. Laacibkii hore Carbon oo u ciyaaray kooxaha Arsenal, Manchester City, Tottenham iyo Crystal Palace waxa uu saftay 242 kulan oo Premier League ah, wuxuuna ku dhaliyay 242 kulan 97 gool. Hase yeeshee goolashiisa waxaa ka badan inta jeer ee uu galay offside-ka. Xogta cusub ee la subiyay ayaa waxay sheegaysaa inuu 328 jeer uu galay offside-ka, celcelis ahaan 1.3 marka la fiiriyo inta uu galayo offside-ka ayaa waxay noqotay 320. Ciyaaryahanka labaadna waa Jamie Defoe ayaa kaalinta labaad soo galay, wuxuuna aad kaga badan yahay kulamada uu saftay Emile Adebayor. Celcelis ahaan 314 ayuu galay offside-ka ninka loo yaqaano Defoe. Waxaa kaloo asigana ku jiro Dimitar Berbatov oo asigana 229 ciyaarood dheeray, offside-kana galay 328. Christian Benteke ayaa asigana wuxuu galay 202. Robin van Persie ayaa waxa uu offside-ka galay 198. Gabriel Agbonlahor ayaa asigana wuxuu galay 195. Sergio Aguero ayaa galay 194. Romelu Lukaku ayaa galay 192 offside. James Vardy ayaa wuxuu galay 186 offside. Nicolas Anelka ayaa wuxuu galay 185 offside. James Vardy, Nicolas Anelka. Sherry Long ayaa asigana wuxuu galay 185. Bobby Zamora ayaa wuxuu galay 183. Wayne Rooney ayaa galay 179 offside. Didier Drogba ayaa wuxuu galay 171 offside. Jay Walcott ayaa wuxuu galay 162 offside. Peter Crouch ayaa wuxuu galay 160 offside. Fernando Torres ayaa wuxuu galay 158 offside. Harry Kane ayaa waxa uu galay 152 offside. Marco Arnautovic